qisadani walaalayaal waxay leedahay oo marka ay tilmaamaysaa caaqibada ay leedahay xalaashu iyo ciribta ay leedahay xaaraantu maal badan oo xaaraana nafci darnaantiisa iyo maalka xalaashi nafciga uu leeyahay iyo waxyaalaha ubadka looga tagaa hadday xalaal tahay iyo hadday xaaraantaasi u kala duwan yihiin qisadan abu jacfar al-mansuur boqorkii la odhan jiray ee ka mid ahaa boqorradii dowladdii cabbaasiyiinta ayaa fii yawmin min al-ayaam waxa uu soo galay culimmadii islaamka caalim ka mida waa muqaatil binu sulaymaan albalkhi sheekhii la odhan jiray oo xagga tafsiirka markaa culimmada aqoonta u leh ka mid ahaa abu jacfar al-mansuur waxa uu ku yidhi muqaatil binu sulaymaan albalkhi wuxuu ku yidhi markaa ciidani iwaani way wacdi wuxuu muqaatilay ma waxaan kugu wacdiyaa bimaa ra'aytu am bimaa samictu oo waxaan maqlaan kugu waaniyaa mise waxaan arkay markaasuu bal bimaa ra'ayt abu jacfar wuxuu bal waxaad aragtay oo aad la kulantay oo noloshaada intaad nooleed marka aad la kulantay taa igu waani buu yidhi abu jacfar al-mansuur raxmatullaahi tacaala calayh wuxuu yidhi markaa muqaatil binu sulaymaan albalkhi waxa uu yidhi yaa amiira almu'miniin laba dhacdo labadaba goobjoog baanu ahaa waxaan goobjoog u ahaa hishaam binu cabdilmelik maalintuu adduunyada ka tegey waxaa kaloon goobjoog u ahaa cabdilcumar binu cabdilcasiis maalintuu isna adduunyada ka baxay waxaan goobjoog u ahaa hishaam binu cabdilmelik oo ka tegay carruur 12 iyo hanti aad iyo aad u kala fara badan oo laa xasra walaa cadad ah oo uu tilmaamay inay ahayd waxay 1 milyan oo diinaar ayuu adduunyada kaga tegey hase haatee cumar binu cabdilcasiis oo isna carruur markaa 10 ka badan ka tegey wuxuu adduunyada kaga tegey markaa 20 diinaar oo keliya ayuu adduunyada uu kaga tegey 8 diinaar oo ka midi 20kii diinaar wuxuu waxa ay raaceen aaskiisii ilmo cumar binu cabdilcasiis ilmo hishaam binu cabdilmelik markii la dhaxalsiinayay dhaqaalihii aabahood qof waliba wuxuu helay hanti aad iyo aad u fara badan oo qof walba ku dhowaatay inuu 1 milyan oo diinaar lacagtii waqtigaa markaa jirtay inuu markaa u qaato oo lacagta uu ka tegey ma yahin 1 milyan ee way ka badnayd ee waraasadii ayaa qof waliba wuxuu helay in ka badan markaa 1 milyan oo diinaar hase haatee cumar binu cabdilcasiis markuu 20 diinaar ka tegey ee 8 aaskiisa ay ku baxeen 12kii soo hadhay ayaa markaa carruurtii loo qaybiyey labadii amiir waa cumar binu cabdilcasiis iyo hishaam binu cabdilmelik labadiiba adduunyada waa ka baxeen labaduba ubadbay ka tageen mid ubadkiisa wuxuu ga tegay hanti fara badan midna wuxuu ga tegay ubadkiisa wax hanti aan ahayn oo markaa waxa weeyaan 12 diinaar wax macno badan ama dhaqaale sida u badan maaha way waxaad qiyaasi kartaa 8 diinaar marka ay ku baxeen aaskii diinaarku xilliga qiimo intee leeg ayuu leegaa qiimihiisuna aad u yara ay dareemaysa hase ahaatee labadii amiirba hooyde oo dhinte ubadkoodina xaaladda ayay kaga tageen markii dambe maxaa dhacay adduunyadii siday noqotay maxay ubadkii cumar binu cabdilcasiis siday noqdeen ubadkii markaa hishaam binu cabdilmeligna caynkii ayuu warkoodu noqday wuxuu muqaatil binu sulaymaan albalkhi waxaan goobjoog u ahaa anoo geerida aabayaashood goobjoog u ahaa waxaan goobjoog u ahaa carruurtii cumar binu cabdilcasiis oo marka waxa weyn la ururinayo jihaadada loo ururinayo fardo loo ururinayo dhaqaale 100 faras 200 faras 50 faras jihaadka markaa ku deeqa oo waxay jihaadka ku dara marka masaajidada laga naadinayo ila leeyahay fardaa loo baahay fardu technique ah waqtiga fardaa loo baahay jihaadka lagu galo iyagoo markaa 200 faras ku dara ayaan garanayaa buu nin walba sadaqadaysta waxa kale oo goobjoog u ahaa ilmo hishaam binu cabdilmelik oo masaajidada looga dawaraayo oo leeyahay waxa loo soo ururiyo ilmo hishaam markaa gaaja ayay markaa u dhimanayaan oo busaarad ayaa ku dhacday ee waxa loo qaada ma loo ururiyo maxay taasi na tusaysaa bal suurayso ubad aad maal badan uga tagtay oo laakiin bila tarbiya ah iyo ubad aad tarbiyaysay oo aad uga tagtay markaa waxay tarbiya wanaagsan oo dhaqaale markaa aanad uga tagin waxa kale calaamad u tahay maalka xaaraanta ah ee ubadkaaga markaa aad uga tagtaa way ku dayacmayaan oo waxa dhici karta in iyagu dawarsanaya markaa ay ku dambeeyaan qisadaasi kutubta markaa daraajimta haday tahay markaa abu jacfar al-mansuur iyo haday tahay muqaatil binu sulaymaan albalkhi iyo haday tahay markaa cumar binu cabdilcasiis iyo haday tahay waxa weyn hishaam binu cabdilmelik iyo haday kutubta kale daraajimta aan ahayn qisooyin ka warrama ay tahayba waxay qisadaas waa laga helayaa oo waxa laga helayaa markaa meelaha samadinaad u ah oo in badan culimadana waa tilmaamaan waxa markaa qisada ku sugan markaa cibra iyo markaa wax lagu qaato sallallahu ala rasuulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiira wa billahi tawfiq